السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي صومالي محمد ميل بودونيد كجوجتان إنا عافماد قبطان رجينا يا مانتو حايدين هاي معمعان يرو فضود ونسمينا عين حلي اي تهاي مقربة وإن ساكا دريميسين بفيديوغا معمعان كان عربتان حيد أهدنا تحليو وانا كان سيدا كتان هادا نوغسو باللعبان يا وحي يرو فضود وكسميسين هاي إن هذا waxaan soo qaadanay digsiga macmacaanada waxaan ku soo darayaa 2 bakeeri oo caano ah iyo half bakeeri koobaad waa kay bakeeri labaad ku soo darayaa kadibna waxaan ku darayaa halfki caanaha intaas aan ugu filan 2 koob iyo halfka waxa kale ku soo darayaa sonkorta waxaan rabaa 4 qaado min qaado ugu darayaa sa idin tuso qiyaastiisa qaadada koobaad waa tahay labaad saddexaad afaraad 4 qaado saasa ku soo dhameenayaa waxaa wax guriga alaab iska taalo aad u fudud oo mar walba sameeysan kartid wax culus ma ahan waqti dheerna ma ka qaadanayso 10 daqiiqo gudaheeda ku hagaajisanee wax yar oo iska macaan waaye marka intaasaan jecleystay inaa idin la wadaago idinkan ag faa'iideysataan inta taqaanaa haddana waxaan soo qaatay waraango ama nasha bahasha xalwada lagu kariyo qofka soo yaqaano nasha af carabi waaye waraanga Soomaalida wax kale ma u kasaay waraanga waxaan ku soo darayaa 3 qaado iyo bar hadda 3 qaado ku shuban filaya barkiyaan ku soo darayaa intaas ay ugu filan sokorta 4 qaado waaye waraangana 3 qaado iyo bar waxaa kale ku soo daraa carfis yariis ah qofkii raban heel yar oo isticmaalaya ana carfisada ii dhow intaas waxaan intay dhulka yaalaan isku dardaraa oo wali dabka saarin haddana waa soo walaaqayaa ayagoo dhulka yaalo maxay la waraangada dabka kula darto bahashiyo kulul kuskuusay noqonay way ka halaabee dabcan qabowg in lagu walaaqa loogu talagalay kadibna dabkaas soo saaranaa haddana waa ka dabkiya soo saartay weli ma kulaanin intuu dabka saaran yahay oo ka soo kulaanay waa si walaaqaya waraangada salkay fariisataa badana marka xoogaa dhaqaajiyo kadib waa joojinayaa waxir kadib haddana ku noqonaa walaaqitaanka ilaa iyo sidii aan rabay ee ka noqoto iiga noqoto macmacaanka yaraa oo u baahnaa marka saas la ku soo wadaa alaab kale oo dhiman maanta lagu daraa aan leeyahay ma jiraan intaas bes weeyaan haddana waa ka walaaqitaan badan fiidiyowga inta hore idinka gooyay inta aan walaaqay wax yar aragteena u maleynaya intaan cabaar badana soo walaaqay haddana wuu noo soo bislaaday waa la dejinayaa intaan wixii ka dambeeyo markaan soo dejiyo baaqul yaraan ku soo shubayaa waa idin tusayaa haddana saan oo noqdo si rabi waa hadda ma sha Allah uu noqday asxaab waxaan wallahi wax iska fudud waaye waana wax macaan oo ilmahana jecel yihiin ani xitaa waa jeclahay in macmacaanka loo faaqo ahay wakaas soo noogu soo dhamaaday qiiqiisa kaamirada idinka qarin oo maleena waa kana baaquliga ku soo shubay uu qiiqoya uu kulul yahay dadka raaw falinjeer gashan karaan ani laag falinjeer ma u baahni saana ku jeclahay daqiiqada kadib ayada adkaanaysa bahasha u jeedinbo is celinayso marka qabowgaas iyo barafkaas ma roomaho saane hadda inoogu taala cabaar kadib markii qandac xooga soo noqotana waa intuu si doonaasi ku soo baxdo waatana haddana ayadoo wax yar qawday wax yar leewayaa ee saan u dhigtaa u jeedinbo markay aad u sii qawdo ka sii daranta adeega noqonee qaado marka ku dartisaas isu raacee weli saas ee tahayne qandaca ku jiro aad uma qaboobin laakiin waa ma sha Allah saana lagu cunayaa saana ku rabaa bahashaneeto isla socod wanaagsan asxaabay soo tijaabiyo insha Allah waa ka heli doontaan nin iyo naag way sameyn karaan wax aad easy u ah waayo oo fudud waa macmacaan casri ahaan waqtiga rabto wax macmacaan kaaga soo dhaco tijaabin kartaa nabadey asxaabay khayr iyo caafimaad rajana insha Allah mac salaama.